بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأحبة في الله، أحبكم في الله. ومسلسلكي أما تحانيه نوسو سعودي كنا سابسانا قصوينك صحيحة كسوغان صحيحينك xalaqadani waa tii toddobaad cinwaankeedu waa sida ku qoran. waxaan u bixinay macallinka adduunka ugu fiican sala allahu calayhi wa aalihi wasalam. inaad garatay baan u malaynayaa. qisadu waa qiso dheer laakiin waan soo aruurinhayaa. mucaawiya ibn alxakam assulami raximahu allahu tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay, maalin maalmaha ka mida ayaan salaada ku soo xidhay nabiga iyo saxaabada oo tukanaya sala allahu calayhi waali wasalam. waagii hore waxaan anigu baadiye aaday ayadoo salaada dhexdeeda lagu sheekaysto. sidee tahay hebelow? alxamdulilah. xalay wallahi saa ilmaa iga xanuunsaday, ilaahi ha kuu caafiyo, hadda salaad baad ku jirtaa ogow. kadibna wuxuu yidhi nin baa hindhisooday. marka wuxuu yidhi ninkii alxamdu lilah. أنا waxaan idhi buri yarxamuka allah. marka yarxamuka allah meesha kuma jirto hadda, waayo qur'aan baa yimid xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa wa quumuu lilahi qaanitiin. yarxamuka allah markaan idhi dadkii oo dhan baa xoogaa dhinac indhaha iisoo fiiriyey. ilqoorka maa la yidhaahdaa ayay saa iisoo fiiriyeen. kadibna waan hadlo waxaan idhi, war hooyadiin idin weydeeye maxaad iga soo fiirinaysaan? kadibna waxay bilaabeen inay bowdyaha ay saa u garaacayaan. waa intaan weli la keenin sharci soo degin altasbiixu lilrijaal waltasfiiqu linnisaa. salaad hadday dhexdeeda wax dhacaan, ragguna waa inay subxaanallah dhahaan, dumarkuna waa inay sacabada ay markaa isku garaacaan. kadib waxaan gartay buu yidhi inay i aamusiinayaan oo ay leeyihiin aamus. hase ahaatee ninka la yidhaahdo mucaawiya ibnulxakam isulami wuxuu yidhi waan aamusay. mar alla markii salaada laga baxay, nabigeenna sala allahu calayhi wasalam biabi huwa wa ummi wuxuu yidhi, maa ra'aytu mucalliman qablahu walaa bacdahu axsan tacliiman minhu calayhi asalaatu wassalaam. waa meeshaan halku dhegga aan ka qaadanay mucallimka adduunka ugu fiican calayhi asalaatu wassalaam. wuxuu yidhi weligay ma arkin mucallim ka hor nabiga ka hor walaa kadibna lama arki doono ka wanaagsan mucallim ahaan oga wanaagsan nabigeenna sala allahu calayhi wasalam. intuu dhaartay wuxuu yidhi, ilaahay baan ku dhaartay, fa wallaahi maa kaharanii walaa darabanii walaa shatamanii. ilaahay baan ku dhaartay ima guulguulin, imana garaacin, imana caayin. keliya wuxuu yidhi, mucaawiyow salaadan aad arkayso ooma suubato wax hadal bini aadama ooma suubato. inamaa huwa atasbiix waltakbiir wa qiraa'atu alqur'aan. bini aadam hadalkii waa la nasakhay, bini aadam hadalkii waa la xidhay. ilaahay xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa wa quumuu lilahi qaanitiina ay saakitiin. ina haadihi salaa, salaadani ooma suubato in dhexdeeda lagu sheego bini aadam hadalkii. inamaa huwa atasbiixu waltakbiiru wa qiraa'atu alqur'aan, aw kamaa qaala calayhi asalaatu wassalaam. kadib baa waxaan idhi rasuulka ilaahayow, wakhtigii jaahiliyada waxaanu u tegi jirnay ama noo imaan jiray niman kuhaana, waa kuwa wax faalfaaliya. ha u tegin buu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam. kuwa madiidada iyo sixirka iyo indhasaracaadka iyo birbirisada iyo waxaasoo dhan waa anwaac min alkhuraafaat wey. anwaac min alkhuraafaat waa in laga fogaadaa, waana in laga digtoonaadaa. dad baa wax sheegsheega iyo dayax iyo dir baa wada fadhiistay. wuxuu yidhi kuwaas ayagana ka fogow. kuwaa wax jeexjeexa oo dhulka jeexjeexa, kuwaas ayagana ka fogow. kadib buu wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow, shalay casarkii adhi iyo xayn aan lahaa anigoo ka horbaxaya, jaariyad iyo addoonna ay adhigaa la jirtay, ayaa waraabe ama dhurwaabaa soo weeraray.
neef ayuu la tegay anigoo arkaya way ka daba oroday oo way ka gaari weyday lixa jecla iqaaday oo dharbaaxan dhab ku siiyey waan garaacay buu yidhi kadibna arrintii waa ila xumaatay rasuulka ilaahayow arrintaasi maxaa xaalkeedu u yahay nabigu sala allahu caleyh wasalam arrintaasi marka way la cuslaatay wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xal kala ma ahe bal horta gabadha iigu yeedh waa loo yeedhay gabadhii nabigu sala allahu alay wasalam imtixaan buu ka qaaday wuxuu ku yidhi ayna allah ilaahay xaggee naga jira waxay tidhi samada allahu fi samaa wuxuu yidhi anigu yaan ahay waxay tidhi anta rasuulullah adiguna rasuulka ilaahay baata nabigu sal ly slam wuxuu yidhi actiqha fa inaha mu'mina xoree waa mu'minad xadiidkani waa xadiid yaab badan oo xadiid fii saxiix muslim xadiiduljaariya dad baa laga kari waayey markay leedahay allah fi samaa kama wado ilaahay baa makhluuqaadkiisa ku dhex jira acuudu billaah gaalnimo weeye haddii la yidhaahdo min jihati alculuwi buu alle naga jiraa oo xagga sare waa inaga markaan baryayna saas dhahna waa ayadoo alle yidhi alraxmaanu cala alcarshi istawa ilaahay carshigiisuu ka sara maray siduu oga sara maray ma naqaan kayfiyada ma naqaan siduu alle u soo dega ma naqaano waa soo degaa waqul yanzilu aljabbaaru fi kulli leylatin bilaa kayfa jala alwaaxidu almutamadixu siduu u soo dega asagaa yaqaan siduu carshigiisa oga sara marayna asagaa yaqaan aayaadka qur'aanka ah siday ku yimaadeen ayaanu u rumaynaynaa bigayri takyiifin walaa taxriifin walaa tabdiilin walaa tashbiihin annaga oo sidaa ku daynayna si imaam maaligu yidhi raximahu allahu tabaaraka wa tacala markuu ninkii u yimid oo yidhi kayfa istawa allah waa kii yidhi alistiwaau macluum luqada carabiga istiwa bimacnaa calaa wartafac waalkayfu majhuul siduu ilaahay oga sara maray ma naqaano intaasoo kuguma fillo maxaad isu daalin oo isu rafaadini waxaad dadaa sida ilaahay uu ku sheegay qur'aanka ayaanu u daynaynaa annagoo ka nasahaynaa oo ka fogaynayna tashbiih bini aadam haddana aanna u diidaynin oo aanan tactiil ku samaynaynin maxaa yeele asagaa sheegtay subxaanahu jala wacala ولذلك أحد العلماء وحيري ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقول أين الله يا كجهل بدن بل يا كبعض النما بدن بل هو أضل بالحمار أهله يا كدقن سنقفيري إلهي لمده كرحجيب وشراه markuu nabigu caddeeyey kadib inay bannaan tahay in la dhihi karo ayna allah mar labaad waan ku celinayaa fi samaa fa'dani lagama fahmaya darfiye inay tahay bimacnaa calaa xuruufu ljari tanuubu bacduhaa bacdaa way iska naa'ib noqdaan waa ilaa xaggeed geynaysaa wala usallibannakum fii juduuci nakli suurtagal ma tahay fasiiruu fi lardi maya caqlan wa mantiqan midna ma keenayso sidaa daraaddeed حروف الجر تنوب بعضها بعضا وحاوي آمنتم من في السماء قرآن كإن بضنب إلهي كسور سبحانه وتعالى في بمعنى على لقموضة إلهي بمخلوقات ككتشرة أعوذ بالله وكفر يقال لما واسع شاقني لكن وحلقة وضع من جهة العلو أي ألنا يجرى السيانة شاكتي الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمه سبحانه وتعالى لا نكيف أن نقول قرنين كيفية ذا إيوه iyo qaabka ay tahay aad baan idin jeclahay uxibukum fillah intaanu kaga kulmayno xalaqadan tii 7 bay ahayde xalaqada 8aad astawdicukum allah wa uxibukum fillah wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh